kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararkaan idin hayno kuwada ugu door karoona waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Rooble oo isku shaandhayn ku sameynaya golihiisa wasiirada iyo xog ku saabsan wasiirada xilka laga qaadayo oo la ogaaday dawladda Mareykanka oo ku amartay madaxda dawladda iyo baarlamaanka Soomaaliya inay qabtaan doorasho degdeg ah madaxweynayaasha Galmudug Hirshabelle iyo Ra'iisul Wasaare Rooble oo ka sii durkaya aragtida in awood ciidan lagu xaliyo xaaladda Muqdisho madaxweyne Farmaajo oo talaabo cusub u qaadaya xaaladda cakiran ee dalka intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu door corona warka iyaga aadna ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan hadii aad nagu cusub tahay subscribe channelka sidoo kale like sar asxaabtaadana u share garay fiidiyoga mahadsanid Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa isku shaandhayn ku sameynaya golihiisa wasiirada iyadoo la ogaaday xog ku saabsan wasiirada xilka laga qaadayo warar lagu kalsoonaan karo oo uu helay warsida TV ayaa waxa ay sheegayaan in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu qorsheynayo in isku shaandhayn ku sameeyo golihiisa wasiirada isla markaana uu xilalka ka qaadi doono qaar kamid ah golihiisa wasiirada kuwaas oo la sheegay inay u dhow yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo talaabadan ayaa waxa sabab u tahay kadib markii kala shaki uu soo kala dhaxgalay madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Rooble iyadoo taasi ay keentay in Ra'iisul Wasaare Rooble uu qaado talaabo uu ku doonayo in uu golihiisa wasiirada uu kaga saaro wasiirada sida aadka ugu dhow madaxweyne Farmaajo iyadoo arintan uu Ra'iisul Wasaaruhu ku doonayo in intaasi kadib uu ugu dhaqaaqo in golaha wasiiradu ay si gacantaaga xilalka uga qaadaan qaar kamid ah saraakiisha ciidamada dawladda kulanka Ra'iisul Wasaare Rooble uu la yeeshay qaar kamid ah xubnaha mucaaradka ah iyo qaar kamid ah dawlad goboleedyada dalka ayaa waxa lagu dhiirigeliyay Ra'iisul Wasaaraha in uu qaado talaabadiisa iyo doorka uu ku leeyahay dalka maadaama ay soo baxayeen shaki ku aadan in ay jirto in Ra'iisul Wasaaraha la qorsheynayo in xilka laga tuuro kulanka baarlamaanka ay yeelanayaan sabtida waxaana dhanka kale ay tani abuurtay xaalad kacsanaan ah kadib markii shalay toole la tilmaamay in ay jirto in la qarinayo in Ra'iisul Wasaaraha xilka laga tuuro iyadoo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ku baaqay in madaxda awoodda kule madaxtooyada aysan shaacinin in mooshin laga wado Ra'iisul Wasaare Rooble waxaana ay taasi keentay in Ra'iisul Wasaare Rooble uusan ku qancin oo shaki ay geliso arinta ku aadan baaqyada laga soo saaray in aysan jirin wararka sheegaya in xilka laga qaadayo Ra'iisul Wasaaraha waxaana haatan jirta in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ka dhareegsan yahay qorshaha laga wado oo ku aadan in xilka laga tuurayo qoray xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa daqiiqado kooban xilkii kaga tuuray Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre kaas oo 7 daqiiqo oo kaliya ay ku qaadatay in la soo afjaro isagoo oo waliba ku maqnaa xalinta dhibaatooyinka jira gobolada dalka dawladda Mareykanka ayaa ku amartay madaxda dawladda iyo baarlamaanka Soomaaliya in la qabto doorasho degdeg ah dawladda Mareykanka oo soo saartay bayaan ay uga hadlaysay xaaladda Soomaaliya ee cakiran ayaa waxa ay madaxda dawladda Federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay u dirtay fariin ku saabsan in doorasho degdeg ah oo waqti kooban ku dhacda in dalka laga qabto doorashadaas oo mid la isla ogol yahay isla markaana lagu laabto shirki afisioni si wada hadal halkaasi looga furo war qoraal oo ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa waxa loogu baaqay madaxda dawladda iyo baarlamaanka in la baabi'iyo muddo kordhinta loo sameeyay hay'adaha kala duwan ee dawladda isla markaana si degdeg ah loo qabto doorasho dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in si degdeg ah loogu laabto wada hadaladii shirki afisioni isla markaana lagu xalliyo arrimaha khilaafaadka doorashooyinka si loo dhameystiro heshiisyada arrimaha doorashada dalka ka dhacaysa sidoo kale war-saxaafadeedka ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa waxa lagu xusay in doorashada la qabanayo ay ku qotonto heshiiskii 17 September iyadoona madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada laga codsaday inay dedejiyaan kulankooda isla markaana ay dhameystiraan in doorasho dalka ay ka dhacdo dhankan kale dawladda Mareykanka waxa ay bogaadisay dadaalada ay wadaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle ugu dambeyntii war-saxaafadeedka ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa waxa loogu baaqay dhinacyada hubeysan iyo ciidamada ammaanka inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara isku dhac hubeysan iyo in colaado sokeeyo ay dalka ka dhacaan
dowladda Mareykanka warka ka soo baxay ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay si aad u cakiran tahay arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana ay jiraan khilaaf xooggan oo ka dhaxeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale xasarad ka dhalatay muddo kordhintii loo sameeyay hay'adaha kala duwan ee dowladda taasi oo haatan dowladdu ay sheegtay inay diyaar u tahay in doorasho ay qabato waxaana jirta in maamul goboleedyada qaar ee dalka sida dowlad goboleedka Puntland in ay iyadu gooniba ugu dhawaaqday in marnaba aysan doonayn in ay timaado Muqdisho isla markaana ay shir ka qayb gasho iyadoo oo aysan u yeerin beesha caalamku waxaana arintaasi ay sii fogeysay in ay jiri karto in wada hadal uu dhaxmaro madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada isla markaana doorasho la isku raacsan yahay ay dalka ka dhacdo kala fogaashiyahaasi isagoo Mareykanku dareen ka qabo ayuu madaxda dowladda ugu baaqay in doorashada loo dhaqaaqo oo aan la kala istaagin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabelle Galmudug iyo ra'iisul wasaare Rooble oo kasii durkaya aragtida ah in awood ciidan lagu xaliyo xaaladda Muqdisho ka taagan madaxweynayaasha Hirshabelle iyo Galmudug iyo ra'iisul wasaare Rooble ayaa iyagu haatan waxa ay muujiyeen sida ay ula muuqato inay aad uga xun yihiin in qori caaradiisa lagu xaliyo xaaladda cakirin ee Muqdisho ka jirta warar lagu kalsoon yahay oo la helayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka qaarkood ay haatan ay kasii fogaanayaan aragtida madaxweyne Farmaajo oo ku aadan in awood ciidan lagu xaliyo arrimaha Muqdisho ka taagan iyadoo go'aankaasi si wada jira ay haatan uga soo horjeesteen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabelle Galmudug iyo ra'iisul wasaare Rooble mas'uuliyiinta ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku qaadaceen muddo kororsigii loo sameeyay madaxweyne Farmaajo waxaana ay tilmaameen in go'aankaasi uu yahay mid aan soconaynin oo dalka u horseedaya inuu galo qalalaase dagaal waxaana ay tilmaameen in loo baahan yahay in la keeno qorshayaal si nabdoon dalka ay doorasho uga dhici karto waxaana ay sheegeen in ay doonayaan in dalka ay doorasho ka dhacdo waxaana muuqata inay wadaan qorshe ay uga hortagayaan tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo oo ku aadan in ciidamada diidan muddo kordhinta dagaal looga saaro Muqdisho xogta la helayo ayaa waxa ay tilmaamaysaa in ra'iisul wasaare Rooble oo kulamo dhowr la qaatay xubnaha mucaaradka ku ah dowladda ay isku raaceen in madaxweyne Farmaajo iyo tallaabooyinka uu qaadayo laga soo horjeesto isla markaana doorasho dalku uu aado oo dagaal iyo abaabulka socda laga hortago go'aano isdaba jooga oo soo baxay ayaa dhabar jab weyn ku ah madaxweyne Farmaajo waxaana ay wiiqaysay awoodda uu madaxweynuhu ku doonayo inuu ku meel marsado muddo kordhinta loo sameeyay iyadoona ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo khilaaf hoose oo ka dhaxeeya uu haatan soo ifbaxayo isla markaana uu ra'iisul wasaare Rooble uu haatan qaadayo tallaabooyin uu kaga soo horjeedo madaxweynaha talada dalka haya ee mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa sidoo kale dhankiisa ah Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe oo lagu xanto inay u dhow yihiin madaxweyne Farmaajo ayaa iyaguna dhankooda kasii fogaanaya iyagoo u dhawaanaya dhanka musharaxiinta taasi oo dhabar jab weyn ku ah madaxweyne Farmaajo iyo tallaabooyinkii uu qaaday waxaana dhammaantood ay si wada jir uga horjeesteen muddo kordhintii loo sameeyay iyadoo ay xusid mudan tahay in madaxweynuhu uu soo dhaweeyay qoraaladii ay soo saareen oo ku aadanaa in doorasho dalka laga qabto ayaa haddana waxaa la tilmaamay in madaxweynuhu uu hoos ka wato qorshihiisa isla markaana uu doonayo in ra'iisul wasaaraha uu meesha ka saaro madaxweyne Farmaajo ayaa tallaabo cusub u qaadaya xaaladda cakiran ee Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulamo la qaatay dhalinyaro barnaamijyo nabadeed oo madaxweynaha lagu taageerayo dhawaan ka sameeyay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kala hadlay arrimo dhowr oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo qorshaha dowladda uga degsan ee ku wajahdo arrintaasi madaxweyne Farmaajo oo koox dhalinyaro ah kulankan la qaatay ayaa waxa uu kala hadlay arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale colaadda ka soo cusboonaatay Muqdisho waxaana madaxweynuhu uu dhalinyarada kala hadlay inaan laga baaqsan doonin in dagaal looga saaro ciidamada ka soo horjeeda dowladda Muqdisho madaxweyne Farmaajo ayaa dhalinyarada u bayaaniyay inuu dagaal uga saaro cidda diidan muddo kordhinta loo sameeyay isla markaana uusan dalku hureynin in dagaal la qaado mooyaane wax kale dagaal ayaynu ku qasbanahay si aan u soo celino xasiloonida iyo nabadii ay lahayd Muqdisho ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay kulankii madaxweynuhu fila Soomaaliya uu kula yeeshay kooxda dhalinyarada ah oo aadka u taageersan sidoo kale waxa la tilmaamay in la doonayo in la isticmaalo awood ciidan iyo howlgallo ballaaran iyadoona taasi ay noqonayso in dagaal oo kaliya lagu wajaho xaaladda Muqdisho haatan ka jirta
waxaana la tilmaamay in ciidamadu ay yihiin kuwa leh tababar fiican tayo iyo niyad wanaagsan taasina ay tahay inay ka hortagi karaan ciidamada ka soo horjeeda waxaa sidoo kale la tilmaamay in madax hore ay ka shaqeynayaan hurinta colaad sokeeyo oo dalka ka dhacda taasina ay qasbayso in dagaal uu dalka ka dhaco iyadoona uu madaxweynuhu tilmaamay inay doonayaan nimankan inay kuraastooda ku raadsadaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed waxaana sidoo kale qodobada lagu cadeeyay in ciidamada dhanka mucaaradka ka soo jeeda ay yihiin maleeshiyad u adeegaya dawladda shisheeye danahooda sidoo kale qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya kulankii ka dhacay kadib ayaa waxa lagu sheegay in saaxiibada beesha caalamka ee ku sugan xarada xalane ay rabaan in dhaqaalaha ay siinayeen dawladda Soomaaliya inay ka jartaan si ay u gumeystaan oo ay rabaan in la aqbalo siyaasadooda mar walbana ay ku dhex jiraan Soomaaliya waxaana sidoo kale la tilmaamay in saaxiibadaasi ay badda Soomaaliya soo galiyeen ku dhawaad 900 oo maraakiib iyo doono isugu jira kuwaas oo ay doonayeen in dalka ay colaad kaga huriyaan isla markaana ay isku diraan dadka Soomaaliyeed iyagoona arintaasi la sheegay inay faa'iidooyin dhowr ugu jirto saaxiibadaasi isla markaana sanadkii ay ka sameeyaan lacag aad u fara badan gudaana daawadayaal warkeed kala socoteen warsiga TV waana inta nabadgeliyo